waxaan maanta oo ay taariikhdu tahay 26ka bishii November 2023 halkaan idinku soo gudbinaynaa warbixintii maalinlaha ahayd ee hay'adda maalinta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ay la wadaagaysay ummadda Soomaaliyeed warbixintaas oo la xiriirta xaaladda guud ee saameynta El Niño hadba meesha ay marayso 24 saac ay ugu dambeysay warbixinada naga soo gaaraya saameynta ay geysatay xaaladda El Niño waxay sheegayaan ilaa 175,052 qoys oo hor leh inay ku barakaceen deegaano ka tirsan maamul goboleedka Jubbaland deegaanadaas oo ay ka mid yihiin Kismaayo, Garbaharey, Buurdhuube, Badhaadhe, Jamaame, Hagar, Afmadow, Doobley iyo Bu'aale sidoo kale waxaa la tilmaamayaa guud ahaan deegaanadan inay si guud ahaaneed ugu go'doonsan yihiin number gaaraya 287,956 qof number gaaraya dadkaas go'doonsan waxaa ilaa shalay laga soo badbaadiyay 552 qof kuwaas oo ku go'doonsanay si gaar ah marka la yiraahdo deegaanka la yiraahdo qaamqaam oo u dhaxeeya halka la yiraahdo Yoontoy iyo Goobweyn kuwaas oo ugu yaraan u jira 25 kiiloomitir degmada Kismaayo badbaadinta iyo soo badbaadinta dadkaasi waxa iska kaashaday oo ka qayb qaatay doomankii hay'adda maalinta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee halkan ka dirtay iyo qaar kamid ah doomaleyda kalluumaysatada ee halka ku nool deegaankaasi ku noolaa waa ilaahay mahadiis dadkaas oo bad qaba in laga soo badbaadiyay biyahaas ilaahay hadda tirada guud markii la isku wada daro saameynta ay u geysatay xaaladda El Niño waxa ay marayaan 2,458,931 ruux halka ay dhimashaduna marayso markii la isku wada daro 101 qof kuwaas oo maanta ay ka cusub yihiin 3 qof oo ay ku dhimatay degmada Kismaayo guud ahaan hay'adda maalinta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed waxay ku guda jirtaa badbaadinta dadkaas saameynta ka soo gaartay xaaladda El Niño sidoo kale waxay had iyo jeer u taagan tahay sidii dadkaasi u gaarsiin lahayd gurmad degdeg ah gurmadka ilaa hadda hay'adda maalinta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ay gaarsiisay deegaanada kala duwan ay saameysay xaaladda El Niño waa 11,399 qoys sidoo kale waxaana diyaarsan sidoo kale gargaar kala duwan oo loogu talagalay in halkaasi la gaarsiiyo sida ugu dhaqsiyaha badan leh guud ahaan 24 saac ugu dambeysay xaaladda El Niño intii ka soo kortay waa hay'adda maalinta musiibooyinka ugu talagashay inay la wadaagto ummadda Soomaaliyeed waa intaas waxaana ka codsanaynaa dhammaan shacab weynaha ummadda Soomaaliyeed iyo hay'adaha gargaarka dawladda federaalka Soomaaliyeed sida dadkaasi dhibaataysan ee deegaanadaas kala duwan dhibta ku haysato loola tacaali lahaa gurmad micno leh oo wax ku oolana loo gaarsiin lahaa inta dhibka ka soo gaarayna Allah u dhib yareeyo inta ku dhimatayna Allah u naxariisto inta hadda wali laga cabsi qabo inay ku saamoobaan ilaahay ha u dhib yareeyo waxaana ku wada dardaarmaynaa inaan si wada jir ah ugu wada gurmano ummadda Soomaaliyeed gacmo wada jir ay wax ku gooyaan